ogtiin waxa ku tartamaya saddex xisbi ninun baana soo bixi doona laba ninun baana soo bixi doona madaxweyne ku xigeen noqon doona kii soo baxaana waa Soomaaliya kii kasta soo baxaana waa Somaliland oo ay namadeennii waxaan shirkan jiraa u qabanay in ummadda u xaqiijino waxay naga filayaan marka arrimaha soo khariijiraan had iyo goor huuhaad iyo propagandada suuqa ku badan ummadda reer Somaliland ee cashuurta anaga nasiisa mushaarka la noo siiyo waxay anagana xaq noogu leeyihiin in ammaankooga aan sugno waxaan ummadda reer Somaliland u sheegnaa maanta oo shirkan aan qabanay ammaanka wadanka ee dibaddu inuu sugay Puntland jaar baan nahay waa dad wanaag naga dhaxeeyo baac mushtari naga dhaxeeyo ma jeclin wax dhibaateen naga dhaxdhacaan way jiraan baarlamaanka iyo niman kale oo hadlay way jiraan anigu waxaan jecelahay nabad iyo jaarnimo inaan ku wada noolaano way dantayda ku jiro cadow badan oo common aan wada leenahay khilaafka labadeeda naga dhaxdhacaana wuxuu abuurayaa in dad kale ay ka faa'iideystaan ayaa ka iman kara waxaan si hadda ogahay anigoo taliya ciidanka qaranka oo liga ciidamadeeduna xagga joogaan xadka uu sugan yahay nabadgelyadiisa waan cid xadka Somaliland ku soo xadgudbi kartaa ma jirto cid ku soo xadgudbitaana day waa cid iyadu bareeday Puntlandna kama filaano sidaasi hadalkooda media la marinayo iyo practicality waa kala gaar ilaa hadda wax dhibaato oo weyn ma hayno